wasaaraha iyo guddiga khilaafaadka iyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo maxkamadda sare intaba waxaan u sheegaynaa 16 kursi inaysan la dooran ee meel intii lagu xereeyay dad la soo saaray in la joojiyo siiba kursigayga 228 astayntii boqorka reerkii loo asteeyay baa nahay hool kale ma aana tegin marag iyo markhaati bay leedahay ergadaydina ma tegin aniguna ma tegin waxaa ka dhacay Puntland horey waxaan uga dhicin Puntland baa ka dhacay waxaa ka dhacay boob baa ka dhacay ergoodii baa la boobay oo kuraastii baa la boobay oo sidaad aragtay baa wax loo qabtay oo waxa weeye 13 gabdhood oo waxa weeye loo yeeray oo cashuurta Puntland la siiyay oo la yiri marka howlka gashaaneen tanaasula ayaa la soo qoray isim baa wax la weydiin oo nabadoon baa wax la weydiin oo aqoonyaan baa wax la weydiin boobkii ugu xumaa iyo dulmigu ugu xumaa Puntland ka dhacay kursiga u tartamaya 228 weeye waa kursiga Cismaan Maxamuud waxaa soo jaangooyay boqor Burhaan boqor Muuse bah Yaaqub iyo bah Dubeys waa ku tartamaysa buu yiri bah Yaaqub nin ka mid ah oo abtigii dhalay buu u xiray madaxweynuhu xubsharxinta kale bah Yaaqub howlka waa loo diiday bah Dubeys waa loo diiday ergadoodii waa la diiday guddigoodii nabadoonada khilaafka waa la diiday sidaasay ku cardaatay boqorkuna waa ogyahay ummadoo dhanna waa ogtahay waxaa ka mid tahay musharaxiinta ugu cadcad kursigaas bal ma la hadasheen guddigii doorashooyinka heer federaal dacwadda ma u gudbiseen ma u sheegteen in Saciid Cabdullaahi Dani uu Boosaaso u joogo inuu kuraasta boob cad ka geysto waxaanu 6 nin oo 6 musharax oo horay arrinta uu hordhaca ugu sameeyay oo Jamaal iyo 6daasaan ku jira waad aragtay waanu sheegnay 3 dabaan ku jiray waanu sheegnay isimadu waa u sheegnay dadkoo dhan baa u sheegay haddana qoraal baan arugu soo samaysanayaa waxaan soo samaysanayaa astayntii boqorka waxaan soo samaysanayaa nabadoonadaydi waan soo tagayaa guddiga heer federaal baan imanaya ilaa maxkamadda sare kursigaygu waa soconaya dacwadiisu doorashooyinka waxaa jira guddiga xalinta khilaafaadka bal Saciid Cabdullaahi Dani marka la fiiriyo faa'iidada ugu jirta in dadkii matalaada dadka u ahaa ee kuraasta xaq u lahaa intuu dhaafiyo uu dad kala siiyo maxay tahay aniga warkan kuga hadlo dowladda kacaankii waan soo gaaray tii SSDF waa soo maray tii maxaan ku yiraahdaa Cabdullaahi Yusuf baan soo maray tii Caddaan soo maray tii ninka la yiraahdo waxaan soo maray Farole tii Cabdiweli baan soo maray weli taas oo kale dad saa u maamula maarag maanta meesha waxa ka dhacay dad taagtaagan oo aan xubintoodii la weydiinayn wax faa'iido ah ugu jira ma jiro codinu ka helayana maaqan waxa weeye boob cad oo aan geed loogu soo gaban baa ka dhacay meesha maxay ka dhigan tahay in doorasho 16 kursi oo in lagu soo koobo muddo ka yar 4 saacadood maxay ka dhigan tahay doorashooyinka deegaan doorashooyin kale intaasi ma dhicin ilaa habeenkii bay gaadhay Puntland ahaan Boosaaso ahaan maxay ka dhigan tahay hadiga waxaan ku yiri 6 iyo kowga codaynaya waa gacantaag oo waad aragteen oo Soomaaliya kama dhicin waxa ka sii daran qofkii tartamayay soo inuu cod helo maaha ama 2 helo ama 3 helo ama 4 helo maaha dabcan tuleebule goortu soo galo macni doorasho kama dhicin waxay soo dhigay 2 qof tartabin dumarka musharaxiinta warar baa sheegaya dumar waxa looga dhigay inay xagga kharashka tahay maxaa ka jira wararkaas adiga waxaan ku yiri cashuurta Puntland baa waxa lagu bixinayaa ninku example marka lacagta la suubayo 10,000 baa laga rabay gabdhaha kan waxa loo soo kaxaystay 5,000 baa la siiyay 5,000 baa la suubaya garanaysaa 5,000 baa la suubaya tanna 10 baa la subilaa lacag soo kaxaystay Puntland waxay kaga duwaneed deegaanada kale Soomaalida Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ismaa loo noqon jiray ismaa sal u ahaa ismadii maxay uga aamusan yihiin boobka iyo dhaca ka socda gudaha Boosaaso ismadii nabadoonadii ay soo qoreen oo guddiga khilaafaadka u soo qoreen waxa weeye waa la soo ceshay waa la diiday kuwa kale u keenay intaasoo shir bay galeen goortii arkeen ninkaa qiimeeyeen xaaladda arkeen suu dhaqmaayo ismadii waxaa la yidhi ninkaas annagu waxaan haddaan hadallana baa warkayagu haddaan xitaa hadallabay dheheen warkayagu socon maya sababta saas ku wadanaya waa gartay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta gabagabada guddiga xalinta khilaafaadka kan heer federaal fariinta diraysa maxay tahay musharax ra'iisul wasaaraha iyo guddiga khilaafaadka iyo madaxweynaha dowladda federaalka iyo maxkamadda sare intaba waxaan u sheegaynaa 16 kursi inaysan la dooran ee meel intii lagu xereeyay dad la soo saaray in la joojiyo siiba kursigayga 228 astayntii boqorka reerkii loo asteeyay baa nahay hool kale ma aana tegin marag iyo markhaati bay leedahay
ergadaydina ma tegin aniguna ma tegin maxaan ku idhahdaa nabadoonadaydina ma tegin oo kuwa shirka jiraad maanta qabtay sidaas aniga aanan tartan u gelin oo la ii diiday madaxweynaha puntland baa diiday aniguna waan soo baxaya xamar baan nimanayaa ra-iisul wasaaraha iyo guddiga khilaafaadka iyo kulli intaasaan u sheegaya anugu